bari ruushka waxa ku dhacday meel oo tiyaatar ayagoo meel tiyaatar ku jira koox jabhad oo mucaarad ayaa tiyaatarkii ku afduubtay dadkii ku jiray markaasay wax bixi iyo wax soo gali male arkaasa naxdin iyo walwal dadkii way afduubayeen dadkan way hubaysayiin qaar ay dilayaan xabaday kor u ridaayaan adi 24 saac ayaa xaaladaas lagu jiray markii dambe jabhadii meesha waa laga saaray dadkiina intii dhimatay moogi intii kale waa laga soo badbaadiyay soo baxeen markaas waxay ku taliyeen dadkii meeshaas joogay oo ruushka ahaa 24 saac dadkii ku jiray tiyaatarka maskaxdooda jug xoog la gaartay dhakhtar oo xagga nafta ku takhasusay dadkii hal marsiyo oo hala sheekaysto xalayseed noqotay maxaa dareentay cabsi inta ilaa waa 24 saac gudood inaga meeqan tumooya soddon sano iyo ka badan marka miyaynan u baahnayn marka dhakhaatiir in laynoo geeyo walaal Soomaaliyeed bal horta rafaadkii idin gaari bal ka sheekeeya taas waxay daawo ka tahay qofka hadduu dhibaato uu gaaro haddii wax ka neefiye la waayo oo lagu caburiyo lay wuxuu noqonayaa uu isla sheekaysanaa cuqdatu nafsi ku dhacays laakiin markuu sheekeeyo salaadina waxa badan mobilada gacanta marmar iska qaataa waa la isdhacaa dadkuna mushkilada inagu dhacday meesha aan gaarnay sidii waxaan noqonay dugaaga xoolaha oo kale xoolaha hadii uu wax soo weeraro looda ama geela ariga wax dugaaga haduu soo weeraro oo mid kamid uu qabsado inta kale maxay sameeyaan ama way cararaan ama xagga intay istaagaan ayay soo fiirinayaan sida loo cunaayo walaalkood ee kama celinayaan hadda inaga saas ma noqonno qof bakaaraha dhexdiisa lagu qabana waa lagu baaranaya mobilka soo bix intii u dhaweyd intay cararaan ay xagga istaagaan isbaaru ku dhacay muujeeda isbaaru ku dhacay war miya way badan yihiin ma hal mar lagu soo xoomo tuugadan laga celiyo ma la hadla sidii xoolaha banaanka laga istaaga markii banaanka laga istaago qofkii wixii la qaadanay laga qaato oo ay ka tagaan tuugadii oo uu soo baxo dadka soo dhaxgalo ay ku soo xoomayaan maxaa laga qaatay maxaa ka gal wixii laga qaataan laga qaatay war miya marka dadku markay mushkilo muddo ay ku jiraan nafsiyaadkooda iyo maskaxdooda caadi ma noqonayso saas daraadeed wax yar ayaa laga yaabaa inuu ka xanaajiyo xaaladda aynu ku jirno marka waxay tahay tiyada quraysh aan ku sheegayno oo kale inaan dhahno soo nabi muxuu yaa weexa quraysh laqad akalatum alharb dagaal ayaa dhameeyay quraysh moogtahay inaga saas maniino yaa weexa Soomaaliyiin laqad akalatum alharb dagaal dhameeyay cidi marka maanta u soo tafaxaydanaysa dagaal hor leh laakiin alxamdulillah dadku waxa way inta ilbaxeen yaa wax u dhaqaaqaya iyo wax dagaal wax ku falaaya ma jirto waxoogaan hadda arkaysaan dadku tartiibtooda isaga dhaqmayaan dadku waxay fahmeen dantoodu inayna ku jirin qof ku danaysanaya inay u daneeyaan oo siyaasadan fiin markay siyaasad la isku haayo ninka siyaasiga ah qabiilka wuxuu isticmaalaa oo kali ah jaranjaro uu guriga ku fuulo markuu darbiga saaro oo jaranjartii uu ku fuulo meesha koro uu koro haduu rabo jaranjartii laadu ku kiciyaa dhulku ku soo ridaayay ilaa kor uu ku fuulay moogtahay dib dambe looma arkaayo kor soo ugu maqan yahay kuwii kor isla fuulay marmar inta isku dhacaan korkii laga soo tuura dhulku iimaana jaranjartii oo dhowr sano ka hor uu dhulka ku riday yuu soo qaadana meeshuu raba inuu saaro marka hadana oo yiraahdo reerkeeni si xun loo galay waxba looma gal adaa lagu galay maxaa jira markaad kor ku maqnayd adii la dhuuqay adii ma waxna siisaanaga kisti marka weysay aan dhahaamiya kale jaranjar hadana ay noqda marka dadku way diideen inay jaranjar noqdaan waati markaas aan ku celin jirnay oo dadku intay wax fahmeen waan soo jeedaa indhaha farahay gelin intii Soomaa dadku way soo wada jeedaan marka cid indhaha faraha laga gelin karo ma jirto waxay ku roontahay marka walaaltinimo wal isfahamsan yahay waxba la iska ma qaaday meeshaan in walaaltinimo la raadiyo hadalku ka macaan yahay la isdhaho aan maxay ahayd la iscaayin aan is aflagaadeynin caayida iyo aflagaadadu waxbay sii xumaysaa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wax sadaqaysta hadaydan waxba heli karin xataa fa bi kalimatin tayyiba war wanaagsan isdhaha ilaahina wuxuu yiri waqulu lin naasi husnan dadka war wanaagsan dhaha waqul li ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna ash-shaytana yanzaqu baynahum adoomahay waxaad ku tiraahdaa hadal wanaagsan is yiraahdeen marka cid walba oo hadal wanaagsan iyo ummadda isu soo dhaweynteeda ka sheekaynaysa dadkaas la taageero oo waa mahadsan tahay ummadda isu soo dhaweynteeda ayaan taageersanahay qof kasta oo ka urkacsanaya dantiisa gaarka si ugu gaaro inuu dadka ku kicsado in la yiraahdo walaalow raali ahaw meeshaas shalay ayaan ku ngownay oo aan aragnay qabiil u roonaadayna ma jiro
cid wax u tartana ma jirto dhalinyarada waxa laga faa'iideystaa intay caafimaad ka qabaan markay dhaawacmaanna aabahood iyo hooyadood ay ka dhaawacmaan oo ayaga ayaa daaweysta hadday dhintaanna aabahood iyo hooyadood ay ka dhintaane qofka dagaalka gali kama dhintaan qofkii dhintayna sariirtiisa ayaa laga tabaa oo ka maqan yahay marka ayaan wax been la isu sheegin dadkan waxay u baahan yihiin in dadka la dejiyo in walaalo la ahaado meel loo kala socdo male lama kala guuraayo dhulkan ilaahay nagu abuuray lama kala jiidan karo marka intaan colaad iyo iscaay iyo rafaad oo dhib aan ku joogi lahayn inagoo walaalo inaan ku joogin ay roon tahay laakiin aqliyada dadkeena waxa in badan ku bees garaysmay wixii ay soo arki jireen oo ahayd raganimada waxa loo yaqaanaa wax iska celi markaas meel wax la iska celiyo meel aan ahayn ayay wax iska celinayaan in wadankii la dhiso oo horay loo socdo hadii la diido wax iska celin ma taas kii diiday in wadankii la isla wado oo la isla lahaado oo ummaddu ay wada socoto kii diidani raganimo ma taas ayada raganimadu waxay tahay in wadanka wixii dantiisa ku jirto hatta hadii ay keenayso mid gaarka adiga ku ah inayna markaas dan ugu jirin laakiin danta guud ay dan ugu jirto waxa raba danta guud daraadeed inaad mid yar u liqdo laakiin hadda aan isdaba marsiinay waxaan leenahay bal inta aan danta guud iyo Soomaalinimo la gaarin anaga maamulkeena qabiilkeena xaafadeena maxaan ka helaynaa koow laba saddex markaan fiirino ummadda guud ahaan waxbay ka heli waxaas ay ka heleen waxba inaga soo gaari laakiin wax ay yimaano inaga inoo gaar ahood toos inoogu imaanaya meesha kama muuqdo saas daraadeed aan qaadacno wax dan on kaleena ma jirto qofkii sidaas sameeya asaa ku ceeboobi doona maxay ilaa hadda bulshada Soomaaliyeed waxay u badan tahay dhalinyaro boqolkiiba 70 waa dhalinyaro marka dhalinyarada waxa la yiraahdaa odayaal waqtigoodii soo qaatay waqtigiina ayna qaadanin oday sii socdo waqtigiisa dhamaystay yaa hadda wuxuu rabaa hadana siyaasad kale inuu dhalinyaradii iyo dadku yiraahdaaye ani soo raaco saay adeer waqtiga waad soo qaadatay wadankeena inaan dajino oo caadi uu noo noqdaan rabnaaye hadaad wax maslaxa oo ummadda u haysa aad haysana keen hadii wax qalooca ummadda si kala fogeyn aad wadidna naga raali ahaw in la dhaxal rabaa marka ummadda xilliga ay gaari lahayd qofka gardana naga raali ahaw inay dhahdo ayaa soo dhow nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam idha habat ummati an taqula lidh-dhalimi ya dhalim haday ummaddeedu ka cabsato qofka gardana inay tiraahdo waad gardarantay naga joog فباطن الأرض خير لها من ظاهرها دولك هوستيسا أو دمشقه أيا هو خير بدن دولك كركيس بمعنى أن دول كنا ولاته وحكفي عن سعزية شرف أن تكون دمته دولك هوستيس إن أتقش ما كأمة الإسلام كأمة دول أقلاته ما وحقا ولا يرى على ذين كرا أنت يسقسو آذيسو لكن مالك الدنبه وحيون ما عندهم تين الآن ميلي إنه وحاس هذا يمردك سوي جيسان وميلي إنه دهانا عدو حكا قاضي سمجرت إذا الشعب يوما أراد الحياة شعبي وهدوم مالك وأنصد إنه النول هذا noloshuna ma aha yaani nafa ay ugu jirta ma aha nolosha lagu sheegayo waa nolosha xurriyada qofku waa inuu xor ahaado hadii laakiin la adoonsanayo oo cunto la siinaayo oo cabitaan la siinaayo oo leeyahay maxaa ka maqan adiga waad cunaysaa waad cabaysaa waa kan oo masiirkiisa oo santala ku lahayn oo xurriyada suurab uu ahli kareen oo dad uu ka cabsanayo taasi nolol ma aha marka nolosha waxay tahay waa nolosha runta ah ida shacbu yawman arada al-haya fala budda an yastajiba al-qadar ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد لليل أن ينجلي شعركاس يعني تذكر حركها كل حرحرا لا بد وين يكلا قوان مركز دنبه وإلى هذا ما يلين ظلمك هبينك مجدي سنة مجدي اللي جري مايه ولا بد لليل أن ينجلي هبينك وينه في الماء مال لوبحه ما تحلق عن مال لوبح العين أو حقه ظاهر لها oo baadilku banaanka ku soo dhici laha oo qofkii baadil wada ka ugu dhawoodhay laha baadilkaaga nagala leex ma rabno taas ay dadku u socdaan marka ilaahayna gaarsiyo taas ayada ummadeennana aan u dhimrino aan u naxariisano wax kasta oo kala fogeyn aan ka ilaalino wax kasta oo walaaltinimo xoojinayana aan isugu keeno ilaahay subhanahu wa ta'ala aan barino in ilaahay ummadeenna isu soo celiyo oo ummad yaani walaala oo islaamkaas ku dhaqanta ilaahay inuu naga dhigo rabbana aatina fid dunya hasana wa fil aakhirati hasanatan wa qina adhaban nar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min adhabika نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله على سيدنا محمد